degmada Cali Xaydhe ka tirsan gobolka Awdal ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay mas'uuliyiin uu hogaaminayo gudoomiyaha gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalim Timbaro. wafdigan oo ujeedada socdaalka ugu daarnaa ka qaybgalka xafladda xil wareejinta maamulkii hore degmada Cali Xaydhe iyo sidoo kale mas'uuliyiinta cusub ee dhawaan loo soo magacaabay. mas'uuliyiintani oo isugu jiray maamulka gobolka Awdal iyo isuduwayaasha wasaaradaha deegaanka, xanaanada xoolaha iyo xubno kale ayaa waxa sidoo kale xafladdaasi goobjoog ka ahaa bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku nool degmada Cali Xaydhe iyo deegaano hoos yimaada. waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay gudoomiyihii hore degmada Cali Xaydhe Axmed Carab Dugsiye iyo sidoo kale gudoomiyaha cusub Cabdilaahi Maxamed Xuseen oo ku hadlayay afka mas'uuliyiinta cusub ee loo soo magacaabay degmada Cali Xaydhe. أنا وحنا هاك قدومي هو الدقمة ما أنت أيام وليتني يا حلك وقف مركز الدوست وحكون سوحكته ولا ولا لعي ووريك حلك ما أنت أنا وأنا خلا لعينا وحلا على حلو وين السوقين نلاش وحنا يفضل دار مياه وحلا قبل دلو إنما لا سفي عنها الله شقيه كل خطبتها قلوينكي مدنانتا waxaa lahaa dawladda si hayay anagu waxaanu jeedinaa waa mahadnaqoon ya soo dhaweyn aan idin hayno iyo qadarin marka waxaan rajaynaynaa haddii la dhaayna Cali Xaydhe hore aan doonin Cali Xaydhe cusub ay noqon doonto hadbana waa kolba sida bulshadu noola shaqeeyaan anagu waxma bedeli karno qof shakhsi wax ma bedeli karo. sidoo kale waxaa hadalka iska daba qaatay qaar ka mid ah madax dhaqameedkii ka soo qayb galay xafladani iyagoona hadallo isugu jira sabootin iyo soo dhaweyn u jeediyay mas'uuliyiintani ayaa waxay yiraahdeen kuwa xilka tiriyay iyo kuwa la wareegay intaba waa u mahad celinaynaa dhammaantood. xilku waa meerto ayagana berriin baa laga wareejin doonaa haddii la yidhaaho. waxaan se codsanaynaa shacbiga reer Cali Xaydhe inaad kolba maamulka ciddii timaada aad la shaqaysaan baad tallaabo ku qaadi kartaan, degmadiinuna kor ugu kici kartaa. maamulka hore waan u mahad celinaynaa, maamulka dambena waxaan leeyahay dhalinyar baa tihiin, waxaad ka qaadanaysaa halka waa inuu noqdaa CV oo aad u adeegtaan bulshada si hufan. Cali Xaydhna waxaan leeyahay haddaynan arrinta inagu aynan isgarab taagin maamul kasta oo la keenaa ma shaqayn doon. diyaar ma u nahay inaan la shaqayno maamulka cusub ballamaan ka qaadnay halka Allah inagu asturo. ugu dambeyn gudoomiyaha gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalim Timbaro ayaa si rasmi ah xilkii ugu kala wareejay maamulkii hore degmada Cali Xaydhe iyo sidoo kale mas'uuliyiinta cusub ee loo soo magacaabay. laba dardaaran oo yar baa ku jiray meesha. أحمد ويدن دليلي وحيدن كل دليلي لا شقين لان هدا دن ودا جيستان oo idinku iskaasataan oo inta waxa ku jirtaan ka baxdaan Cali Xaydhe noqotaan horumar waa samayn kareysaan. intaas laakiin idinku isku maqan tihiin wax walba idinka maqnaanayaan. war xariga Ilaahay wada qabsada oo iskaashada bal inta horta Cali Xaydhe waa la idinka helo. waxa ay la socda laba isu duway la socda mid waa kii xanaanada xoolaha midna waa kii deegaankiina waa laga dayrinayaa. dhuxusha ku badan seeriyaashii dawladda iska odoodateen dhulkii daaqay xooluhu noo daaqayeen baa odooteen. waxa la idinka dardaarmayaa inay ilaashataan deegaankiina. waa Cabsalaan Bashiir Faarax Cabsalaan Saaha warbaahinta qaranka Somaliland